الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الله walaaladayda aan jecelahay waxaan jeclaystay inaan caawa halkan idinkugu soo bandhigo sifooyinka iyo tilmaamooyinka lagu garto ahlu jannaha. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu abuuray janno iyo naar. adduunyadan markuu rabbi subxaanahu watacaala uu abuurayay ayaa rabbi subxaanahu watacaala dadka adduunyadan ama degi doona rabbi wuxuu u kala saaray laba qaybood. qayb jannada geli doonta oo lagu magacaabo asxaabuuljanna iyo qayb naarta geli doonta oo lagu magacaabo asxaabuunnaar. ilaahay subxaanahu watacaala kuwa jannada gelaya nagu dara rabbi subxaanahu watacaala wuxuu noo tilmaamay haddaba astaamaha lagu hanan karo jannada qaaliga ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogu bayaamiyey qur-aankiisa. wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu noo sakhiray uu noogu bayaamiyey haddana axaadiista nabigiisa suuban salawaatu rabbi wasalaamu calayh. haddaan mid ka mid a aayadaha qur-aanka soo qabto waxaan doonayaa inaan soo koobo ilaahay subxaanahu watacaala fi suurati ali cimraan wuxuu leeyahay wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. abaalmarintii weynta. laakiin astaamaha lagu garto ahlu jannaha ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tartama janno balarkeeda iyo markaa dhirirkeeda uu leegyahay cirka iyo dhulka oo laysku daray. loo fiirsada cirka iyo dhulka oo laysku daray. cirkan oo aanan runtii halka uu ku dhamaada aanan tegi karin ama aanan gaari karin iyo dhulkan aanan garanaynin meesha uu ka bilowday meesha uu ku dhamaado. ilaahay subxaanahu watacaala baaxadda intaa la uu sameeyey ayuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu jannadiisii ilaahay subxaanahu watacaala uu la ekaysiiyey labadaa meelood wax leeg. dhulka iyo cirka wax leeg buu ilaahay subxaanahu watacaala ka yeelay. alle subxaanahu watacaala marka wuxuu tilmaamay haddana sidoo kale dadka hananaya jannada aadka u weyn ee qaaliga ah ayuu rabbi subxaanahu watacaala inoo tilmaamay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay aladiina yunfiquuna fi saraa kuwa xoolahooda bixiya marka ay barwaaqa sooranka ku jiraan, marka ay barwaaqaysan yihiin iyo marka ay dhibaataysan yihiin. yunfiquuna fi saraai wadaraa waalkaadimiina algayd. haddii laga caraysiiyo caradooda waa kuwa qarsada, waa kuwa isxijiya, waa kuwa isxakameeya. waalcaafiina can innaas intay isxakameeyaan bay weliba waxay cafiyaan dadkii khaladka iyaga ka sameeyey, dadkii khaladka ka galay ee ku khaldamay ee u gafay ayay haddana cafiyaan. waalkaadimiina algayd waalcaafiina can innaas wallahu allana wuxuu leeyahay yuxibu lmuxsiniin kuwa muxsiniinta ah ee samafalayaasha alle subxaanahu watacaala aada buu u jecel yahay. ilaahay aada buu u jecel. kuwee wey marka aladiina kuwii weeye idaa facaluu faaxishatan haddii dembi galaan aw dalamuu anfusahum ama naftooda ay dulmiyaan ama ilaahay subxaanahu watacaala ay dulmiyaan dakaruu llah allay xasuustaan oo ilaahay subxaanahu watacaala ayay u laabtaan faاstakfaruu lidunuubihim dembigooda bay rabbi subxaanahu watacaala dembi dhaaf ka warsadaan ama ay ka weydiistaan. ilaahay wuxuu leeyahy waman yakfiru dunuuba ila allah. ma cidaan ilaahay ahayn baa dembiga kaa dhaafi kartaa.
waman yakfiru dunuuba ila allah. haddana ilaahay wuxuu ku tilmaamay, wuxuu leeyahy walam yusiruu calaa maa facaluuhu wahum yaclamuun. kuwa joogteeya ee iska sii wata dembiga ay sameeyeen ma aha, waa kuwa marka dembiga ay sameeyeenna joojiya, ilaahayna dembi dhaaf ka warsada. ilaahay subxaanahu watacaala markuu intaa sheegay ayaa wuxuu leeyahy kuwa astaamaha lasoo sheegay oo dhan ku sifooba, jazaahum maqfiratun, abaalmarintooda waa dembi dhaaf, maqfiratu min rabbihim wajannaatun tajri min taxtiha alanhaar, iyo jannooyin iyo beerood hoostooda ay soconayaan wabiyo, khaalidiina fiiha nicma ajru lcaamiliin. ilaahay wuxuu leeyay way ku waarayaan, weligoodna ka bixi maayaan. waxa barwaaqaystay oo maxay ahayd khayr helay oo wanaagsanaaday kuwa ajirkaa wanaagsan shaqaystay, kuwa ajirka noocaa shaqaystay ee jannada shaqaystay, ama jannada wixii lagu geli lahaa, camalkii lagu geli lahaa shaqaystay, kuwaasaa wanaagsanaaday buu rabbi subxaanahu watacaala leeyahay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaa inoo weydiinayaa idinka iyo anagaba, ama idinka iyo anigaba inaan ka mid noqono kuwa jannadiisa gala, ee jannadiisa lagu casuumo, ee jannadiisa markaa lagu martisooro, ee lagu karaameeyo, ee la yidhaahdo jannada albaabiyadeeda badan ee 8 ah midka aad doontaan ka gala, ama jannada kasoo gala kuwa la yidhahdo. ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhigay. baaraka allahu fiikum. sii sheer gareeya oo camalka jannada lagu tegay, oo acmaasha lasoo sheegay iyo tilmaamaha lasoo sheegay oo koobane, insha allah weliba qaar kaloo kasii kooban, ama sifooyinka iyo tilmaamooyinka haray iyo kuwa axaadiista noo haray, intaba insha allah waa sifeyn doonaa. insha allah fiidiyowyada dambe ama muuqaaladeena dambe ayaan insha allah ku sifeyn doonaa. baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayra, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. sii sheer gareeya, walaaladii la wadaaga, insha allah khayr baad heli doontaan. subscribe naga dhaha insha allah. baaraka allahu fiikum, assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.